sawirada aan wanaagsaneyn ee maalmihii la soo dhaafay laga bixiyay dawladnimada dalka ayaa waxa ka mid ah in la siyaasadeeyay ama la qabiileeyay ciidamadii qaranka oo loo adeegsaday horinta colaado sokeeye waana tilaabo u gub ah oo lagu soo kordhiyay nidaamka dawladnimada dalka muddadii ugu dambeysay siyaasiyiin ayaa iyagu shaki gelinaya in Muqdisho ay u qalanto inay sii ahaato caasimad iyagoo halbeeg kaga dhigaya qalalaasihii ka dhacay caasimadda sida madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole haddaba sidoo u shaqeynayay nidaamka dawladnimo 4 sano ee la soo dhaafay dawladda federaalka ayaa gaartay guulo waaweyn oo la xiriirta horumarinta ciidamada maaliyadda dayn cafinta iyo waliba sugidda amniga waxaa la dhisay ciidamo tayo leh oo qalabkoodu u dhameystiran yahay tababar sarana leh kuwaasi oo awood u leh fulinta howlgallada nooc kasta oo ay yihiin balse siyaasiyiinta mucaaradka ayaa bilaabay in ay qabiileeyaan ciidamadaasi taa oo ah bilow la filan karo in mar waliba ay dhacdo haddii xitaa iyagu ay ku guuleystaan qabashada hoggaanka dalka 4 sano ee soo socota waxaa adkaan doonta in miiska wadahadalka la isku fahamsiiyo danaha siyaasadeed ee jira taa beddelkeeda waxaa qoraygu uu noqon doonaa midka dhinac waliba uu ku meelmariyo danihiisa siyaasadeed sida laga bartay casharada siyaasadeed ee laga dhaxlay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee caasimadda haddii siyaasiyiinta mucaaradka uu ka soo dhex baxo ninka hogaaminaya dalka 4 sano ee soo socota waa inuu diyaar u yahay inuu wajaho xaalado badan oo khatarteeda leh sida ciidan la qabiileeyay ama la siyaasadeeyay oo lagu tilmaamay in ay ka soo horjeedaan qorshe markaasi taagan ilaan waa mid ka mid ah casharadii uu horay u soo dhigay oo dib uu akhriyay doono dawladnimada ayaa ah haybadda ugu sareysa ee dali uu leeyahay taasi oo lagu qadariyo laguna ixtiraamo madaxbanaanidiisa horumarkiisa iyo siyaasaddiisa dawladnimadu ayaa waxa ay leedahay in dadku ay isku kalsoonaadaan isna aaminaan maadaama ay tahay hal dalad oo ay wada harsanayaan ummad markaasi jirta waxaa jira caqabado nooc waliba leh oo kaaga imaanaya siyaasadaha dibadda kuwaasi oo aan rabin hori socodkaaga iyo in aad noqoto dal isku filan dhaqaale ahaan iyo amni ahaan qofku markuu uu ka mid yahay dawlad waxa uu leeyahay heybad u gaar ah oo ay ku xambaarayso dawladnimada waayo waxa uu gacanta ku hayaa sharciga iyo kala dambeynta balse haddii aad ka baxdo xeendhaabkaasi waxa aad noqonaysaa mid halgankiisa halbacaada ku lisay Saadiq John waxa uu ahaa taliyihii qaybta booliska gobolka Banaadir waxa uu ahaa mid ka mid ah taliyayaasha ugu adag dhanka dawladnimada waxa uu saaxiib la ahaa sharciga waxyaabihii u gaarka ahaa Saadiq John waxa ka mid ahaa inuu ahaa qofka ugu dambeeya ee wax laga weydiiyo ogolaanshiyaha ama diidmada xitaa hadduu wasiir uu yahay ka gudbidda kontaroolada magaalada casharadii ugu dambeeyay ee laga bartay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxa ka mid ahaa in geel iyo raashin loo geeyo askari loo isticmaalay hab qabiil oo aag kaga jira Muqdisho iyadoo la iska indhatirayo ciidamada difaaca kaga jira bannaanka caasimadda taasi oo noqotay dhaxal reeb aan u wanaagsaneyn dawladnimada taliyayaasha u goostay habka qabiil ayaa noqotay mid ka mid ah wadooyinka aan wanaagsaneyn ee ku furmay nidaamka dawladnimada waxaa walwal badan laga muujinayaa mustaqbalka dhow iyo kan fog in beeluhu ay isticmaalaan wadadan oo kale marka ay doonayaan in ay fushadaan dana iyaga u gaar ah oo ay ka leeyihiin dawladda waxaa maragma doonto ah in tilaabadan ay tahay waddo la furay oo horseedaysa in la qaado mid la mid ah labada ciidan ee gaarka u tababaran ee Haramcad iyo Gorgor ee ka kala tirsan booliska iyo xoogga ayaa ah ciidamo ay dhistay dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo waxaana tababartay dawladda Turkiga waana hanti qaran oo ay ku faani karaan shacbiga Soomaaliyeed midda la yaabka leh ayaa ah in siyaasiyiin ay ku howlan yihiin sidii ay u kala furfuri lahaayeen oo ay u kala dhantaali lahaayeen 20 sano dawladnimadii la goobayay taariikh cusub ayaa qormaysa waana mid xambaarsan dhiilo meeshii shalay laga soo bilaabay ayay dib ugu laabanaysaa haddii aan dib ugu laabanno mudaxileedyadii madaxweynayaashii soo maray dalka sida Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud dawladdii Shariif waxay weerartay hoygii duqii hore ee Muqdisho Allah u naxariistay Maxamed Cumar Xabeeb Maxamed Dheere ilaa heer xabsiga ay u dhaadhiciso
mana jirin tilaabo liddi ku ahayd oo ay ku dhaqaaqeen dadkii taabacsanaa maxamed dheere. sidoo kale xilligii madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa iyana dharaar cad la weeraray hoygii guddoomiyihii degmada Wadajir Axmed Xasan Cadow Axmed Daaci oo isaguna dowladdaasi ay xirtay. waxaase xusid mudan in ciidamadii weeraray rasaas ay ooda kaga qaadeen gurigii guddoomiyaha haatan ee gobolka Banaadir uu ka deganaa degmada Wadajir Cumar Filish, inkastoo wax khasaare ah aysan ka dhalanin. iyadoo sidoo kale xabsiga loo taxaabay Sheekh Xasan Daahir Aweys. ciidamada ammaanka ayaa jirdil xoog leh u geystay odayaashii Hawiye ee tixgelinayay isu soo dhiibista oo ay u arkayeen in ay tahay tilaabo horey loo qaaday, iyana ma aysan dhicintaa, waxaana reerahoodu ay awood u lahaayeen in ay sameeyaan tilaabooyin la mid ah kuwa haatan socda, laakiin ixtiraamka loo hayay dowladnimadii curdanka ahayd ayaa ka weynayd. midda keliya ee dadka dhabanahayska ku reebtay ayaa ah hadallo ka soo yeerayay qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida ee weli ku baaqaya hurinta colaado sokeeye. Alxaaji Muuse Suudi Yalaxow ayaa dhowaan ka dhawaajiyay hadallo u muuqda dhiilo colaadeed, waxaana ka soo yeeray hadallo aan kala saaraynin shakhsiga madaxweynaha ah ee isagu iska tegaya iyo dowladnimada dalka, taasi oo siyaasiyiinta qaar ay ku tilmaameen inay dib u celinayso maskaxda malaayiin Soomaaliyeed oo u soo joogay marxaladihii burburka.